deriska oo aan diiradda ku saari doonno mas'uuliyadahana saaran doorka shakhsi walba amniga iyo nabadda bulshada deriska ah. kulan wacan dhegayste kusoo dhawow barnaamijka toddobaadlaha ee danta dalalka deriska oo aynu ku qaada dhigno arrimaha shacabka xuduud wadaagga iyo danta bulshada deriska ah. xalqada maanta waxaan diiradda ku saaraynaa mas-uuliyadahana saaran waa maxay doorka shakhsi walba oo ka mida rayidka iyo bulshada xuduud wadaagga iyo kaalinta shaqo walba oo ciyaari karo si loo helo amni iyo wadajir la intifaacsado. Mandheera iyo Beled Xaawo inkastoo xuduud uuna kala qaybiyo haddana taariikh iyo asal ahaan waxaynu ka simannahay dhowr shay. waxaan wadaagnaa wax walbo haddii ay noqoto diinta, afka, dhaqanka iyo hidaha. waagii hore laga yaaba inuu jiray humaag yar, balse hadda labada dhanba bulshada waxaa ka go'an inay u midoobaan halgan ka dhana amni darrada. bal sawiro bulshada oo u midowday ka shaqaynta nabadda iyo amniga si loo helo mustaqbal nuur badan oo lagu bulaalo. doorkeennu waa muhiim, mas-uuliyadahana saaran way badan yihiin, waxay saameeyaan xasiloonida iyo wadajirka. waa maxay doorka aan ku leenahay sugidda nabadgelyada iyo amniga? barnaamijkan ayaa ka kooban xubno xiise badan, balse marka hore aynu maqalno gundhiga xalqadeenna. waxaan ka mid ahay shacabka rayidka ah ee xuduudka la wadaaga Beled Xaawo Mandheera. aad ayaan ugu shaqaystaa oo ehel iyo qaraabo oo aanu ku leeyahay. shacabka labada dhinac waa ii hal. ammaanka Mandheera waa ii guul iyo farxad, waayo noloshayda iyo midda ehelkaygaba waxay ku tiirsan tahay nabadgelyada labada dhinac. sideen ugu shaqayni karaa amniga? maxaase ila gudboon laamaha ammaanka? sideen ula shaqayni karaa amniga? door shakhsiyadeed oo noocee ah ayaana ka dheeli karaa? caalamka kale inta badan dadka xuduudda wadaaga waxay ku kala duwan yihiin qowmiyadaha, dhaqamada, luuqadaha iyo isfahanka, balse innagu intaba waannu ka simannahay. keliya haddaannu xoojinno isfahanka iyo isqadarinta waxaannu hoos u dhigi karnaa amni darrada, isku dhacyada, saraynu u qaadi karnaa wada noolaanshaha. haddaannu isku boorinno wadahadalka bulshada, isdhexgalka iyo barnaamijyada barashada qiyamka iyo yoolka aanu wadaagno, runtii waxaa noo qabsoomi kara wax walba oo aan u baahannahay maanta bulsho ahaan. ila jaanqaad anigoo ah Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan Ibraahim Yare. barnaamijka waxaa marti inoogu ah Maxamed Ibraahim oo ku magac dheer Chief Gaduudow. waxa uuna hormuud u yahay howlaha nabadgelyada ee countiga Mandheera. waxa uuna ka mid yahay safiir nabadeedyada Mandheera ku sugan. barnaamijka marka hore ku soo dhawow, maxaad kaga falcelinaysaa shakhsiga su-aasha gundhiga barnaamijka maanta inoo soo diray? bulshada door ceenkee ayay ka ciyaari kartaa sugidda amniga iyo ka hortagga waxyaabaha amni darrada u keenaya? bismillaah, allahuma salli calaa sayidina maxamed. magacayga waxaa la yidhaha Maxamed Cabdi Ibraahim. ha yeeshee waxaa magaca naanayska waa Chief Gaduudow. haddana waxaan ahay odayaalka magaalada Peace Ambassador. xagga nabadgelyada ayaan ka ahay mataqaana ambassador amaba wakiil. danta dalalka deriska oo mataqaana toddobaadla in lagu qabto waxaan dhihi lahaa waa arrin fiican oo mataqaana dadka isu keenaysa. waxaana jirta saddexdan wadan oo iska soo horjeeda. wax badan baan ka hadalnay in mataqaana ay nabadgelyo ku wada noolaadaan. nabadgelyadana iskama imaade laakiin dadka meesha degan oo wadanka degan ayaa la rabaa inay keenaan. haddii aan ismaqalno oo odayaal dhankan rag iyo haween waxay ahaataba dhan walba jooga ay mataqaana ay guntiga dhiisha iskaga dhigaan oo sidii nabad lagu heli lahaa ay falkeed galaan, nabadgelyo waa imaadaysaa. saas la adligeed waxaan ku gubaabin lahaa dadka in mataqaana nin walba meesha adiga aad joogto sidii nabad lagu heli lahaa aad ka fikirto oo nabadgelyada dhankaada aad ka qabato. aad ba u mahadsan tahay. marka sidee shacabka ugu qayb qaadan karaan baad isleedahay xalinta khilaafaadka xuduudda iyo nabad sugidda? shacabka waxay ugu qayb qaadan karaan marka hore waayo horta ismaqal. markaan ismaqalno guddi 3 geesood la dhiso.
guddiga asaga aan mataqaanaa nin walba uu waxa la yidhaaha networking program la suubiyo oo nimanka hadda Ethiopia jira network ay ku jiraan Soomaali sida oo kale Kenya sida oo kale in mataqaanaa aan mobilada kala qaadano oo sidii mataqaanaa lagu hirgelin lahaa nabadda aan ka fikirin waxaan ogsoonahay hadda ka hor xoolo ka dhumay Kenya oo Soomaaliya u dhumay ayadoo odayaal ay xagga joogaan oo network program aan haysano oo network aan ismaqli karno aan u dirnay fariin telefoon u dirnay war xoolo sidaas oo tilmaantaas leh ayaa xaggiina u soo dhumay hanaloo soo qabto 3 beri gudahood xoolihii waa la soo celi taas waxay ka dhigan tahay haddii network aan qabno oo dadkii ismaqalna in wax walba ay simple noqonaan wixii la arka la soo sheega Kenya hadda lagu arka Soomaaliya u sheegna Ethiopia u sheegna oo wada xiriirkaas naga dhaxeeya sidaas nabadgelyada nin walba waa ka shaqayn kara waa tahay waa maxay horta waxaa jira marar qaarkood dhibaatooyin marar isxuduudda ka dhaca waa maxay dhibaatooyinka curiya amni darrada ee xuduudda maadaama hogaamiyaal horena aad ka mid tahay oo soo noqotay dhibaatooyinka waa badan yihiin ha yeeshee horta dadweynaha waddanka degan sidii Soomaalida 3 meelba Soomaali unbaa degan ala isma gafaan dadkan Soomaalida laakiin maamulka ayaa dhibaatooyinka keena hasa anigoo afka ka dhowrnayn maamulkeena Kenya hadda jooga waxaa laga yaabaa dhankaas xagga inay mar walba laga sheegto Soomaaliya xaggeeda ka sheegata Ethiopia ka sheegata oo haddii aad fiirisana maamulka ayaa dhibaatada keena maamulka markaan ku leeyahayna waa askaraha xuduudiyada fadhiya sidaas ayaa loogu sheegtaa markasta haddaan sheegnana waa la yeelayay waa la hagaajinaa unbaa la dhahaa wax hadda hirgalin weli ma lihin taas la adligeed waxaan dhihi karaa dhibaatooyinka badi ka dhaca xuduudka waxaa keena maamulada maxaa nala gudboon bulsho ahaan annagoo samaynayno hadduu nala soo darso amni darrada horta ilaahay baan ka magalgalnay laakiin haddii amar alla aamin darre ay imaado waxaa fiican in lasu imaado laga wada hadlo oo 3 xuduudba dadka degan ay isu imaadaan dad macquul ah oo tala keeni karaan lasu imaado oo la fariisto war dhibkan ayaa nala soo gudboonaaday seen wax yeelna la dhahaa wixii xulna dhinac looga wada jeesto haddii Kenya xaggeed uu ka imaaday dhib Kenya xaggeed ka imaado waxaa la rabaa in mataqaanaa la fariista reer Kenyana ay qaataan dhibaatadaas waa run waa jirtaa waa xalinaynaa haddii Soomaali tahay sidoo kale haddii Ethiopia tahay sidoo kale marka nin walba in mataqaanaa dhibka imaado oo mataqaanaa marada u dhuuqsado sidii lagu joojin lahaa aan ka wada fikirin waa tahay aad ba u mahadsan tahay marka sidee ula shaqayn karnaa laamaha ammaanka waa maxay tallaabooyinka ay bulshada qaadi karto si ay uga hortagaan isku dhacyada iyo xalinta dhexdhexaadinta maamulada iyo dadweynaha waa inay ismaqlaan waxaa jira wax la yidhaha security iyo community waa dadweynaha securityna waa dadka maamulka oo inay howlaha ay hagaajiyaan la rabo saas la adligeed waa in xiriir fiican uu naga dhexeeya annaga iyo securityga aan si fiican usu maqalno securityga iyo dadweynaha ay wada fariistaan security iyo dadweynaha isla shaqeeyaan hadda shalay waxaa jirtay meeting oo la dhigay meeshan county commissioner oo security-ga waxay joogay magaaladan ay laga wada imaaday dadweyne ay imaadeen oo la fariist laga hadlay xag sidii lasula shaqayn lahaa saas la adligeed anigu waxaan dhihi lahaa security-ga hadda laga sheeganayo oo ammaan darrada badi waxay ku imaadaa maamulka laleeyahay inaan la wada fariisano radio talk show oo dhaca sidii lagu bedeli lahaa waxyaalahaas kulli aan ka wada hadalno waa tahay dhegeystayaal qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay aad ba u mahadsan tahay barnaamijka wax yaraan sii wadanaynaa waxaa jira marka qaarkood caqabado shacabka xuduudda ku dhaqan soo wajaha marka maxay yihiin caqabadaha ugu weyn ee dhanka nabadda ka haysata bulshada xuduudda haatan waa sidee xaaladda amniga waqtigan iyo weliba maalmihii dambe miyaa la helay mise xaaladdu way sii cakirnaanaysaa maalin dhexdaasina waxaan ognahay in xuduudda dhanka Ethiopia mararka qaarkood shaqaaqado ay ka dhaceen oo bulsho halkaasi laga soo celiyey sideed u aragtaa dhibaatooyinka dhacabadi waxaa waaye mataqaanaa xagga beec mushtarka way ku imaadaa
maxaa yeelay saddexda wadan waa isku baahan yihiin, wax walba waa isla wadaagaan. beec mushtarka alaabta inta laga keena Kenya la keenaa, Kenya wixii ka baxa Soomaali loo qaado, Soomaali wixii ka imaada ay meeshaan imaa Ethiopia sida oo kale. beec mushtarka way horta shaqaaqooyinka badan wax ay ka dhacaan. haddii waa jirtay mar Ethiopia dadkeeda xoolo laga qabtay oo meeshaan la geli, kolley waa laga wada hadlay sidii ay ku dhamaatay. ani hadda saas bay ku dhamaatay kuma dhihi kara sidii runtii, ha yeeshee laakiin dhibaatada ugu badan waxaa waaye beec mushtarka. kareetadii laga soo raray beled xaawo oo soo maraysa Mandera u soo socoto, waxaa jirta in mataqaana dhexda loo istaago oo wax laisku ogyahay un laga qaado waxay tahayba. inkastoo taas ay tahay wax un heshiis hoosaaneed oo wax xagga dowladda hadda sidaan aaminsanayno dowladda u gelihaya mataqaana maal u gelaya ay ahayn, waxaan dhihi lahaa shaqaaqooyinka badi waxay ka dhashaan beec mushtarka iyo wax isdhaafsiga oo wadanka iyo wadankaas oo beec mushtarkooda. waxaana ku gubaabin lahaa dadweynaha waqti allahi waqtigii aad mataqaana wax keenaysin idinkoo ismaqlay oo wax adina waxaan kuu dhimayno beec mushtarka ninka nimankan kaloo jidka fadhiyana kolley ay un kugu sii dayneen in la hagaajiyo ma ahayna. xaduudka waa xiran yihiin, waa ogsoontiin beec mushtar Soomaaliya iyo Kenya waa kala xiran yihiin, xaduudka waa xiran yihiin. inkastoo Panya Route iyo meelo lasoo mara, xaduudkaas ilaa laga furo oo wixii mataqaanaa canshuurta ay dowladda u gasha, waxay ila tahay in aanan nabadgelyo buuxda la heli karin. dhacdooyin maalin walba ay dhacayeen, laakiin waxaa mahad ilaahay dhacdooyinka hadda beriyahan waa qaboobeen. kolley la heshiiya iyo si ay wax yihiinba hadda beriyahan dhacdooyin badan oo dhacay male. sidee bulshada ugu faa'iideysan karaan ay isleedahay ganacsi iyo kobaca dhaqaalaha ka dhasha deegaanka si lamida dowladda sidee sare ugu qaadi kartaa isleedahay amniga iyo nabadgelyada, maxaase la gudboon waqti xaadirkan rajada mustaqbalka ee bulshada ee amnigana waa sidee? midaas kolley waa midda hadda aan sheegay, waxaa waaye arrin soo jirtay haddana jiri doonto ilaa xaduudkaas laga furo oo lasu imaado oo wixii lasoo gudbinaya canshuurta intaas ayaa loorkii laga qaadaya amaba gaarigii intaasaa laga qaadaya lagu heshiiyo oo wax ay dowladda og tahay ay noqon. waxaan u malaynaa weli waa si fiican looma hagaajini karo oo sidaas ay noqonaysaa kuma dhihi karo. ha yeeshee dadweynaha waxaanun ka codsanaya amaan u sheega waxaa waaye walaalayaalow sidii nabadgelyada un lagu adkeyn lahaa falkeed hala gala. waa tahay marka ugu dambeyn sidee labada dal ee deriska ugu shaqayn karaan isleedahay kobaca iyo weliba sidii bulshada xuduudda degan ay u intifaaci lahaayeen oo khayraadkan u qaybsan karno? ismaqal ayaa lagu ka heli karaa taas. dadweynaha saddexda waa Soomaali, waa Islaan, waa Soomaali, waa dad wada dhashay, waa dad xidid iyo xigaale ah. waxaan dhihi lahaa annaga aan ismaqalna, waxba anagoon fiirinin maamulka iyo dadkan oo mataqaana markaas security-ga ama awoodda haya aanan fiirinin. annaga waa in aan hal meel ka wada jeesano, waa in dad isjecel oo dad walaalo oo wax wadaaga aan noqono oo isdhaafsano mataqaana mobilada iyo wax walba oon heshiis wixii awalba aan ku dhaqan jirnay. dhib hadduu dhaca heshiis unbaa un la gaari jiray, geed hoostiis la fariisto oo la heshiiy. saas la adligeed dadweynaha waxaan leeyahay ahsan aan sidayni usu mataqaanaa nabadgelyada aan u hayna, aan usu maqalna, mobiladana aan kala qaadana, aan wada hadalna. sidaas unbaan ku gubaabin lahaa. barnaamijka danta dalka deriska waa barnaamij cusub sidaan arki haya. waa tii hore oon dhihi jirnay daris wanaagii unbaa iyadana daba haysaa. saas la adligeed waxaan dhihi lahaa dadweynow aan tashano, aan wada qaybsanno khayraadka wadanka ka soo baxa. waana deeqayaa anagoon mataqaanaa kan isku ron yahay kana ku ron yahay sidii diinteenna ay sheegayso. wixii adiga aad jeceshahay walaalkaa la jeclaaw inaan ku wadno oo dadka mataqaanaa isu keenno oon wada hadalna oo mataqaanaa wixii xunna aan gaar ka wada marna ayaa nabadgelyada aan ku hayn karnaa oon lagu filin. dhinaca kale waxaan waraysi la yeeshay mid ka mid a dhalinyarada magaalada Mandera isagoona ka waramaya doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan xoojinta nabadgelyada. wuxuuna yiri sida tan: aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalkay. magacaygu waa Xasan Maxamed Cumar oo ay bulshada ismaamulka Mandera ay u taqaano abwaanka Mandera. su-aasha aad weydiisay oo ah sidee dhalinyarada door intee dhan oo ay ka qaadan karaan dhinaca nabadgelyada markii la yiraahdo
runtii markii laga hadlo dhalinyarada waa lafdhabarka bulshada. Haddii ay noqoto dagaal iyo haddii ay noqoto nabadgelyo, dhalinyarada waa kuwo ah lagama maarmaan. Door muhiim ah ayayna ka qaadan karaan markii loo kaco dhinaca amniga. maxaa yeelay haddii ay maanta qalalaasi ama dhib aad dhaco, wixii ku dhinto waa dhalinyaro, wixii macnaha maaragtay loo adeegsado waa dhalinyaro, wixii wax ku dhaawacmo waa dhalinyaro. Marka 100% waxaan isdhihi karnaa dhalinyaradu door muhiim ah ayay ka qaadan karaan dhinaca maxaan idhahday dhinaca nabadgelyada. Haddii aad maanta meel wax ka dhaco 99% dhalinyarada digitalkan aan hadda ku jirno waxaa la isticmaalaa aalado kala gedisan ayaa la isticmaalaa. Waxay halkaas bulshada u marin karaan awareness ama idhahda wacyigelin aad iyo aad u weyn ayay oo ballaaran ayay u marin karaan. Goobaha ay wax ka dhacaan ama rabshadaha ay ka tagaan ayay ka dhacaan ayay tegi karaan. Marka 100% waxaan isdhihi karnaa door muhiim ah ayay dhalinyaradu ay ka qaadan karaan nabadgelyada iyo amniga baan isdhihi karnaa. daraasaadku wuxuu sheegayaa in 10 daqiiqaba sanadkii 2023 la dilayay qof dumar ah, waxaana dilalkaasi si ula kac ah u geysanayeen nimankii ay wada joogeen misaba shakhsi ka mid ah qoyskooda. Xadgudubka ka dhanka ah haweenka waa khatar joogto ah, ma laha sabab lagu xadgudbi karo haweenka iyo gabdhaha. Waxaanu u baahannahay sharci adag oo dhaqan gala, xog aruurin daahfuran, dowlad la xisaabtanta iyo dhaqan aan u dulqaadan dulliga ku xadgudba dumarkeena. door noocee ayay bulshada weynta ka ciyaari kartaa dhanka sugidda amniga marka laga soo tago dhalinyarada? run ahaantii bulshada dhanka amniga door muhiim ah waxay kaga qaadan karaan. Run ahaantii horta waa in wada shaqayn buuxda laga hela laamaha amniga iyo weliba bulsho weynta goobtaasi ku nool. Waa in dhexdooda transparent ay taallo, waa in trust ay taallo oo dad is-aaminsan ay noqdaan. Waa in bulshada caqabad walba oo markaasi ku soo kordhisanta ay la wadaagi karaan laamaha amniga oo markaasi ka agdhow. Waa in macnaha maaragtay ay ama booliis ha noqoto ama laamo amni kala noocyadooda kala gedisan ha noqdaane ay ayaguna noqdaan wixii shacabka ay ula imaadeen kuwa markaasi falcelin degdeg ah ka qaado. Markaas waxaa imaani karto wada shaqayn buuxdo, waxaa imaani karto ammaankii inaas noqdo mid buuxo, waxaa imaani karto dadka shacabka ah kuu noqdo in ay macnaha maaragtay ay laamaha amniga si toos ay ula shaqeeyaan. Waxaa imaani karto in halkaas ay cadaalad weyn ay ka dhalato. Waxaa imaani karto in ay dadka maxaan idhahday bulshada ah ama bulshada rayidka aan idhahda ay macnaha maaragtay noqdaan ay ogaadaan kuwa markaasi xaquuqdooda og iyo meesha laga jiro. Waxaa imaani karto laamahaasi amniga ah kuu noqdo bulshadooda inay macnaha maaragtay wax weliba oo agagaarkooda ka dhacay iyo wax weliba oo ay dareemaan kuwa isla markiiba macnaha maaragtay raboodka heli kara inay ayaguna noqdaan. Marka waxaanu isdhihi karnaa bulshada 99% waxaanu isdhihi karnaa waa kuu door muhiim ah ka qaadan karo. Waa haddii ay imaado wada shaqayn buuxdo ayaga iyo laamaha amniga. waa tahay aad baa u mahadsan tahay. marka ma jiraan wax dadaallo oo bulshada ay wado oo ka dhanan nabadgelyo darada? ugu dambeyntiina sideed u aragtaa xiriirka ka dhexeeya labada bulsho ee xuduud wadaagga dhalinyarada ku nool saddexagalkan Mandera, Suufta iyo weliba Beled Xaawo, sidee loo midayn karaa baa is leedahay? run ahaantii hadda waxa aan meesha aan joogno waa meel saddexagal ah. waxaan 3 xaduudood waa Mandera, Beled Xaawo iyo Suufto. waa 3 dal oo markaasi jiiraan ah. run ahaantii wada shaqayn buuxdo hadda way ka jirtaa, wayna kasii jiri doontaa. Dhanka dhalinyarada markii la yidhaahdo waxyaabo fara badan oo 3 bulshoodba lagu wada shaqayn kara ayaa jiro. dhalinyarada haddii loo kaco dhinaca ciyaaraha, waa in kuwa Mandera dhalinyarada joogto ay macnaha maaragtay ay u gudbi karaan dhinacaas Beled Xaawo ay u gudbi karaan oo ciyaaro kusoo ciyaari karaan oo friendly match ah. kuwa Beled Xaawana ay usoo gudbi karaan ismaamulkan Mandera oo ciyaar friendly match ay ku qaban karaan sida hadda dhacdaba. sida lamid dhanka idhahda Ethiopia Suufto waa inay dhalinyaradu halkan ka tegi karto oo ay xagga kusoo ciyaari karaan, kuwaasna ay halkaas ka soo tegi karaan oo inta ku ciyaari karaan. Markaas waxaa imaanaysa kalsooni buuxdo oo isku qabi karaan saddex xagaloodkan aan maanta aan deganahay dalkani magaaladan Mandera aan idhahda. waxaa imaanayso kalsooni ayaa imaanayso, waxaa imaanayso in lis aamino ayaa imaanayso, waxaa imaanayso wada shaqayn buuxda ayaa imaanayso. Mar haddii wada shaqayn buuxda imaadana nabadgelyada ayaa macnaha maaragtay sii kordhaysa,
qalalaaska iyo waxyaabaha faraha badan ee markaasi meelaha qaar ka dhacana 99% waa yeeraanayaan. marka haddii aan su-aasha sida saxda aan ugu jawaabo waa in saddex xagaloodkani maanta aan joogno laga bilaabo dhalinyarada ay noqdaan kuwa markaasi friendly matchka sida ciyaarahaas aan sheego isla wadaago, kuwa markaasi saddexda dhinacba haddii beled xaawa ay ka imaadaan iyo Mandheera ay imaadaan, kuwa si wanaagsan loo soo dhoweeyo, si wanaagsan macnaha maaragtay ugu noqdo dalkooda ugu noqdo, kuwa suufta sida camal, kuwa inta ka taga ee Mandheera ka taga suufta taga sida camal si wanaagsan loo soo dhoweeyo oo waxa discrimination amaba faquuqitaan ay labada dhinacba ay dareemin. marka halkaas waxaa ka imaan karo wada shaqayn iyo aan idhaahda is-aaminitaan buuxo ayaa halkaasi ka dhalan karo. waa marka dhinaca dhalinyarada loo kacayo bulshada kaleba. aad iyo aad baad umahadsan tahay. waxaa kale oon halkani ka salaamaya dhammaan bahda Dawa FM iyo bulshaweynta ayna dhegaysanaysa meel weliba ay markaasi ay ku kala sugan yihiin. halkaasi ayaan ku soo afmeeraynaa halqadeenna maanta oo aan diiradda ku saaraynay amniga, nabadda iyo doorka bulshada. waad ku mahadsan tahay dhegayste la jaanqaadka. nagala soco baraha bulshada sida Facebook, X iyo YouTube. ciwaankeenana waa danta dalalka deriska. xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa horumarka bulshada deriska ah. ilaa iyo kulanti dambe, maca salaam. waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkaasi iminka waa noo sii soconayaa. hadihii dhegeystayaasha barnaamijka ay ka qayb gali jireen ayaa la gaaray. barnaamijkana maanta waxaynu kaga hadli doonaa xalqadeena maanta sidaas kusoo dhegeysateenba. waxaan diradda ku saaraynaa mas-uuliyadaha nasaaran. waa maxay doorka shakhsi walba oo ka mid a rayidka iyo bulshada xuduud wadaagga, iyo kaalinta shakhsi walba uu ciyaari karo si loo helo amni iyo weliba wadajir la intifaacsado, gaar ahaan shacabka ku dhaqan Mandheera, beled xaawo iyo weliba dhanka suufta Itoobiya. si lamida sidee bulshada xuduudda u adkeyn karaan amnigooda ayagoo aan xiisad dhalinin oo carqaladeynin deriska. doorka bulshada ee ka hortaga kontrabanka, daroogada iyo weliba waxyaabaha kale nolosha iyo amniga halista kuwa sidee looga hortegi karaaba isleedahay dhegeystow. sidee shacabka ugu qeyb qaadan karaan xalinta khilaafaadka xuduudda iyo weliba nabad sugidda. si lamida door nooce ay bulshaweynta ka ciyaari kartaa dhanka sugidda amniga. sidee bulshadeena ugu wada shaqeyn kartaa ka hortaga rabshadaha iyo weliba qalalaasaha. sideed u aragtaa dhegeystow xiriirka ka dhexeeya bulshada xuduud wadaagga ee Mandheera, beled xaawo iyo weliba suufta. qadadka tooska idaacadda ayaad dhegeystay barnaamijka kaga qaybgeli kartaa. Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan ayaan ahay oo alla barnaamijkeeda la socodsiiya. waxaa naga soo wici kartaa eber 720 eber 434 eber 9 eber 6 eber 72. waa qadadka tooska ee barnaamijka danta dalalka deriska. sideed u aragtaa dhegeystow xiriirka ka dhexeeya bulshada xuduudda wadaagta, shacabka siday uga qayb qaadan karaan baad isleedahay xalinta khilaafaadka xuduudka iyo weliba nabad sugidda. sidee bulshadeena xuduudda u adkeyn karaan amnigooda ayagoo xiisadan dhalinin. dhegeysta ugu horeeya barnaamijka. asalaamu calaykum. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. salaam waa maxamed xaafadda bulkamood. aad iyo aad dhegeystayaal iyo qabiir khafrada maajo aad iyo aad u salaamay. qabiirta aad iyo aad ugu aad iyo aad 104 salaamay. waa tahay waana ka qaadnay. marka haddaan guda gala horta niyow yani markii la dhahaa shacabka yani saddex geesoodka inkastoo yani martida aad iyo aad u faahfaahisay. waa tahay horta Soomaalidan dadka waa ehel waana qaraabo afti ay sinaan leeyahay. dadka waa marka laba shay u kala qaadayna. haye marka aan raayigay labada shay loo ka dadna horta waa xoolo dhaqato waa isku guuraan waa soo guuraa ilaa ay waxa iska kasmaayeen markii yani jibada hoose ilaa jibada dhexe iska markii yani laare xoolo la dareen. dadna waa dad ganacsatayaal hadda yani bulaha iyo Mandheera iyo suuq inta dhaxaysa. waa tahay ani yani hadda markaan ka hadlayo dadka xoolo dhaqatada geeli hadda yani ka soo ilaa iyo taaga wax ka soo socday ka imaado ilaa baan huuda dulka gaar wax ka imaado oo ilaa iyo raamor waxaan ka soo imaado ilaa halkaas waxa la jibada hoose ilaa jibada dhexe. waa tahay marka waxaa ku xisaabtamaysaa geel asaas bihiisi wartaas dhacaya iyo mali yani marka macluumaadka lagu cunayo xaqaalaha raashinkiisa ka fakar muy warta waxyaalo kale oo aad yani oo geel xaga ka keentay iyo xaga u maaday xaga u soo horta ku dhahayo male. maxaa yeelay dadka waa dad ehel oo qaraabe ah. waa tahay hataa yani hataa iska dhaaf geelada xaga iska imaaday iyo xaga u socdaay nin ilaahay abuuro ka hor imaaday ama ku gudinaya hataa geelas yani waxaan asmay hataa dhahayo male. haye ilaa baar dheer aan loo waday maalin dhaweyta ilaa inta ka dhaxaysa meel kasta oo yani hadda gelada annaga aan ka marno hadda jibada hoose ilaa jibada dhexe wadanka xuduudda aan leenahay horta dad walaal oo helo qaraabo gacmaha kugu soo dhaweynayo mid dad kale male. waa tahay
marka intaan garoomaha ciyaaraha horta ilmaha dhalinyarta ee tiimamka yani hadda sida boocbooc iyo halgan iyo hadda inkastoo hadda laftigii dhalinyaro aan aniga laftigii garoomaha aan tagay one day one tournament waxa la lahaa jira oo koobka liiga la dhigayo markii saan oo kale ay tahay waa tahay ciyaarahaas marka semifinalka waxa waaye dhalinyarta nooc walba iskaga imaadaa garmadowga odayaal nin walba haddaad ordi karta adigu Ibrahim hadda dadka 40 wixii kasoo sokeeyo ilaa iyo 30 25 inta u dhaxaysa waa tahay wax yacni xuquuq oo meeshaas ka jira horta mala aad iyo aad loo wanaagsan yahay ilaa tawshi badaal ma Geneva hadaa tagta ilaa burburi meel kasta oo goran ka dal waa la camira qalabkii awood nabadgelyo nin walba xaafadda uu ka imaado ku noqdaa waa tahay marka dhinacan aqabada yani haysata waxa waaye hadda sida arkaysid hadda dadka madowdooda yani kiyaasaana ugu sugnaa bilaa hortiyaa ka imaaday ayagoo iska wareejiyo alaabta iska raran oo hadda waxa ku qafka bilaadan ahaan oo yani waxaan dameer u raran bilaadan u raran iska dhex wareegsana ilaa buulaha meel kasta tag waa tahay maxaa yeelay amniga haystaan gabdhaha dharka dhaqayo kiyaata kartay nin xuquuqay nin xagad ka imaad iyo xagad u socotaa nin dhahay male waa iska dhex wareegsan waa ganacsi waay haye dhinaca anaga u soo naqa marka waa tahay waxaad arkaysaa maamooyin oo jilibku ruuxata ama gaari makoono wax ku wada ama aday kale dad oo wax arkaysaa habta anaga xagad ka imaadeen xagad boqolkii ama 200 oo qofkaas sayta xagad ka imaad aan la dhihin anaga fiiri ani maxamed haan hadda Kenya joogo haddii wax kasta waxaan ka soo rartay haddaan waxba laga qaadaynin oo si nabadgelyo aan ku maro haddana aan ku soo tago ku soo galbado horta waxa waa nabadgelyo aad u fiican tahay haye marka xogo yani ay aqabada ay la kulmayaan kulli waa dhageystayaalka hadda anaga hadda ma wada dhinacsi marka waxa waa wax lagu heshiiyo oo saxan jaangoon haddii gaarigan aas buuxo yani soo raro in la iska hubiyo oo la iska fiiriyo askari waxa yani shaqadiisa aas ku tarto waajib waxa yihiin lama yaqaan alaabta laftirkeeda anaad horta baarto oo ma dhacday ma dheedkeeda dhacsan xagay ka imaaday xagay u socotaa inaad iska fiirsato haddii yani habaarin aan dhaha oo alaabtaas qofkaan asiga waxaas la galaa wadanka adiga adiga horta amnigiisa qalqal galay waa tahay waxaase ka sii fiicnaa saddex dawlad oo niman odayaal ha joogo dawladda joogto waxa waa haddii dawladdaas hadda inkastoo hadda wada hadal ay socoto oo yani hadda xuduudka in la furay badda lagu dhawaaqin marka waxaa la rabaa sidii hadda ay ku socoto inay wax lagu wado oo lasii dardargeliyo oo dhamada laga sii xoojiyo waa tahay marka waxaa loo sii xoojin media la soo hadda idaacaddan daawa FM maalinkii yani hadda waxaan u maleynayaa hadda beeshay sanadka shanaad hadda socotaa wacyigelintan waa socota 24 saac waa ku mahadsan awal ma heli jirin waa tahay nin walba ra'yigiisa iyo dhageystaan meeshuu joogaa yani aad iyo aad horta loo weydiinaa iyo wixii sababtaas maangelyadaas ayada aad ku sugan yahay marka anaga laftirka anaga xoolaha bulada joogo aryaasha ka dare aryaas laftirkiisa halkaan maraa balaxa uu kor kala maraa ilaa malkaariyay uusi oda xagga iska soo daaqa wax ilaahay abuur wax ku falay ma ariga xagga waa isku darmaan anaga hadda sidaas suufka cilada naga haysta xaggeeda waxaa webigaa naga celinaa waxay taabta anima sheegi karaba waa tahay oo weligay badda ma tegin haye marka nabadgelyada aad iyo aad muhiimada koobaad oo nabadgelyada shacabka haddii yani qofka Soomaali waa kana Soomaaliga garoomaha la ciyaar kale askarta laftirkeeda qoryaha waa soo reer Soomaaliga marka ay imaadaan waxa waaye ayaga laftirkooda ma taagan wax kuwa mashquula iyo wax inta u socotaa iyo xagad ka imaadeen nin dhahay mal inay ciyaalka marka ay xamaasada ay kala geyso iskala celiyaan waa laga yaabaa marka hadda aad iyo aad u wanaagsan tahay waxa waaye wacyigelintan aad ka shaqaynayso sida rag odayaalka oo martida aad iyo aad ugu mahadcelinaya soo fariistay dhageystayaalkan kulli ra'yigooda sida dhageysan doonaa waad mahadsantiin marka waxa waaye dhinaca beecshada waxa waaye askariyan inuu wax isku hubiyo oo fiiriyo wixii marka fiiriyo qofka haddii qof Soomaali hadda anaga waxaan leenahay askar gooni ma garan waa tahay aad iyo aad loogu dirsan dadka hadda musuwaxle ka carraa laakiin anaga askarta anaga wiishana NPR ka aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa horta banaanka 90% aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa joogaanba habeenkii sidii ayaga mishaar ma qaataan gunno qafiic ma haystaan ilaa saanad oo yani saanad la sii ma laha marka wax yar aan la isko yaro hadda bishii aniga hadda maxamed aan qancin sagaalka kun mana cuna masilmiya cuna amal wax ilaahay abuura ma horta yaala horta malaha waa tahay marka countiga waxaan ku codsay ragga meesha odayaalka fadhiya laftirkooda inay la fariistaan oo shacabka la fariistaan jiifataa iyo guddigii iyo nabadgelyada la fariistaan bal nimankaas xogo musuwaxligan kor laga keenay ayaga noo dhaamay Soomaaliga aad ugu dadka musuwaxli waa ka carraanay si loo xoojiyo hadda amnigoodii iyo mishaarkoodii iyo saankoodii wax lagu taro aad iyo aad u wanaagsan tahay horta niyo waxa cilad horta aniga hadda inkastoo kiyaan horta awal waxa dhigi waxa hadda alambeyd waxa jirta wax hadda xoolaha ta laga qaado oo waxyaalo fara badan oo hataa neef ari la iska bixi waa jireen marka haddii wax kale waa iska wax u tahay xaafadaha way badan yihiin inta hataa konta boqol wiisas loo aruuriyo saadkooda lama wayn waxa waa adiga haddii wax ku tar way laftirka iska ila qabsal raba waa tahay oo ciidamada amniga oo kuwa KPR ta la xoojiyo habeenkii dariiq kastaba ayaga taagan ilaa waagu ka bariyo ilaa raaci ka soo baxda ayaga una taagan waa tahay marka waxaan ka rajaynayaa inay nimankaas ilgaal lagu fiiriyo waxay yihiin bad la tirkoobo saadkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo miisaankoodii la tirkoobo horta aad iyo wanaagsanaan leh haye marka haddii la waayo anaga jiifataan leenahay wax kastaan leenahay amnigii iyo dadka culumadinka iyo ganacsatada inay ka qayb qaataan horta aad iyo aad u mahadsanaan leh waa tahay
marka waan idin salaamay martidana aad iyo aad u salaamay kuma dheeraanayo marka aad iyo aad kugu hambalyeynaa maalinta ku wacnaa talaal aad baa u mahadsan tahay maxamed aaraadi saliimka ee barnaamijka danta dalalka deriska oo kaga qayb galay oo uga mahadnaqaya dhegeystayaasha kale ayaan barnaamijka fursadaha u siinayaa si aarahdooda barnaamijka ay ugu soo biiriyaan halowdha f m qadka kiiliya dhegeystahaasi mar kale soo beegsan ayaan leeyahay dhegeystayaasha kale waxay naga soo wici karaan qadadka tooska idaacadda si barnaamijka ay uga qayb galaan halowdha f m wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu qadka kiiliya dhegeystahaasina aada buu u mahadsan yahay barnaamijkana dhegeystayaasheena ay ka qayb geli karaan sidee bulshada xuduudda ay u adkeyn karaan amnigooda ayagoon wax xiisad oo carqaladeyn dhaninin doorka bulshada ee ka hortaga kontrabanka daroogada iyo weliba waxyaabaha kale ee hubka sharci darrada uu ka mid yahay sidee shacabku ay uga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka xuduudda iyo weliba nabad sugidda sidee bulshada ugu wada shaqeyn kartaan iraadee ka hortaga rabshadaha iyo weliba qalalaasaha gobolka iyo sidee u aragta xiriirka ka dhexeeya labada bulsho ee xuduud wadaagga waa su-aalaha miiska inoo saaran barnaamijka danta dalalka deriska dhegeystayaasheena ay kaga qayb geli karaan دقيستان هدانو باقولو دافم زاينو وحيران ساعتها waa maxamed wallahi horta niyo marka hadda sidii kaanuud hadda bari horta la kooto ma taal ilaahay baa mahad ismaamul korta wax ka tari waa Soomaali hay warka nimanka Soomaali la tago aad iyo aad loogu dirsay awlad waxa jiri jirtay niman kaanuun laho waxa jiri garuulay oo dhafta askarigan hadda oo qalabka sidaba aan heen oo laftirkaada jaajuus kugu oo wax alla waxa guusta iska dhaafta meesha ma qafka tarbaanka jaajuus ku qaado sheega iska jiri hay hadda ciladaas waa la fi county ismaamul oo Soomaali ay leedahay hay marka waxaa la isku wacyigelin karaa aniga dadka amnigaada kuu sugaayo habeenka adiga kuu taagan inaad ka murgooto oo la rafaado oo la daalaan aad aad u wanaagsan tahay oo national government dawladdu waxa waaye markaad wax ku haleynayso waa wax yani wixii adiga amnigeeda askari amnishaari oo la yaqaano oo meesha soo fariistay markuu meesha ku soo fariisanayo waa tahay marka waxay ila tahay ra'yigayga haddaan ka hadla waxay ila ahaan leed aniga maxamed haddii bishii la intaas kan 300 ama 500 budgetkaas kurid kaas kale laga qaado kan ganacsadaha asiga ilaahay wax siiyay laftirkiisa la ogaado laftirkooda qoondooyin la isku targalay oo canshuurtaas dawladda ay leedahay wax ka dheeri hadii loogu targalo askarigan waxa laga yaabaa inuu waxba ku xadgudbin hay marka hadduu yani sharciga uu ilaalinayo wixii meeshaas soo gudbay qofka waa soo waxba la yeelinaa wixii asiga aas lahaay oo la soo gudbay ama kareetaha lagu wado ama shakhsiyan oo gacanta ku wado wuxuu yahay lama oga waa inaad iska baartood fiiris aad u wanaagsan tahay waa tahay waa shaqada u taalo waaye marka waxaa laga rabaa anaga jiiftaha meesha yaalla oo guddiga hoose oo ismaamulada in la isla heshiiyo oo xaggaba saddexda dhinacba laga heshiiyo oo marka ayada waxay ku qalab qaadaan la ogaado askarigan laftirkiisa waqtiga marka hadda la xadudku waa xiriir saakal la amal waxaad arkaysaa gaarida hadda yani booliska sida dalangursalaha hataa marka iska tagaan waxaad arkaysaa dadka shacabka ah oo lugtooda waxa wadin oo xag u gudbay inay iska soo gudbaan walish MBR la iska soo aagso marka la walaalayaal wada anaga waana taqaana dadkan ayaga kala yaqaano waa run marka aqoonitaas oo dadka yaqaana horta ku fiican ma yani hadda dhawntiyan laakiin waxba ka waligiis meesha horta aan waxba aan yani shaqan hataa oo waxba kama yaqaan waa tahay marka in la xoojiyo amniga la xoojiyo afarta dhinacba shacabka laftirkooda waxaa waaye inay amnigaas la shaqeeyaan waa wanaagsan tahay marka anaga laftirka anaga xoolo dhaqataan horta waxaan u hambalyeynaa fursadda aan haysta ugu faa'iideynaa Axmed yani biir oo hadda 15 kaunti oo xoolo dhaqatay madaxweynaha meeshaas yani imaadaya aan fiirinay oo 90% xoolo dhaqato horta aad iyo aad loo qadareynayna hay marka ma ay sabta ku qoransan tahay waxa waaye Ibraahimow anaga waxa waaye ilaahay baa mahad ismaamulka laftirkiisa waxba lagu maaleen karaa waa dawlad dhaxo oo laftirka dawlad kale bishaarka sugu hayso marka waxaa laga yaabaa dadka shacabka ah haddii ninkan shacabka hadda saddexdaas bariyo jooga dhaqaalaha waddanka waa ku soo socda luujimiya la kaleysana meelihii maqaayadaha xafladaha ayaa wax kastaba laga cunaya marka maxaa kula gudboon shacabaa tahay waxaa la rabaa marka inaad ka amni qaadato oo dadkaas sayta hataa iska canduf xagooda ay usoo tufin hataa iska ilaalis waa tahay marka waxaa la rabaa wadooyinka ay ku socdaan inay yani xogaha mid yani 15 kaas yani ismaamul hadda meesha hadda wajeer loogu qabtay barnaamijka laga faa'iideysta county waxaan u baaqayaa waliba yani marka saarka wajeer dhanba dheer lagu qabto waxay aniga xoolo dhaqataan in kasto yani wadanka anaga warshad ma laha saabuun soo saarto maxamed waxyaabo yani fara badan horta u baahan ma garat qodobkan hadda ku soo laabatahay marka qodobka waxaan leeyahay ismaamulkaasi taa lagu soo yani hadda anaga labada saddex xuduud sidii hadda ilaahay baa mahad hadda nabadgelyo buuxdo aad iyo aadan haysanaa
oo ku naaloonayna anaga lafta anaga xagad ka imaadan xagad u socotay in hebel miyaata ninku dhaha ay sidino meesha rabta dalxa ka tagaysa ilaa iyo garbaari ilaa gada dhexdooda intana marka waxaa la rabaa dhinaca Ethiopia يعني laftarkooda inay xogaho anaga hadda Ethiopia waa iga reer nuqsada una kugu celi moogtahay horta sax gal hadda marka yacan dhalinyarada aan ku soo in kastoo dhalinyarada ku dhahay waxa waa ciyaaraha yani geemka hadda marka sida league loo fiiriyo camal horta waa tahay marka askarigii NBR taayna waxa kugu soo xadgudbaa kii booliska sidoo kale xagga jooyna kugu xadgudbaa waa soo Soomaali wareexaad ka imaad xagga xataa hataa ninku dhahay ay sidin haye marka waxaan dhihi hal si xooji Star F yani hadda daawa F ma kula hadda waxa waaye baraha bulshada أنت يعني فيسبوك صدق قرشان هذا إبراهيم وهذا ودي هرت وإذا كوهم بلينا ما قرأت وحاول أنا قاعد عظم لهنا وحاول تذكر هرمري حتى أنا قاعد كمجد أفر سنة هرتاد ويحكي الدنبي هذا وحنا يعني كنت لابس سنة هرمر وين وبلارن واتاي مركب وحنا ربع مركب يعني تاجا بانس سويد المقاس ودن إلى مالك سبقان تكست إن لقيه وريال أقوام السياد وريال كجوك الله سقره وما يعني إسكاسين تدري وحنا وجروا وحاول هذا يعني أدي هذا الضوء وحاول دين على سبتمبر كما قلت واتاي صاحب أدي ما شاء كاونت لما صارك لكن واجهه عند كوسو نقطه وحياله فرق بدن اسك جير marka waxa waaya walaal anaga dhaxdarnadu waaya hadaan ku soo noqdo waxa amniga la istiqaashado marka hadii aad u mahadsantiin waa idin salaamay akhyaarta aad u salaamay aad baa u mahadsantahay maxamed uu mahadsan yahay sida qurxoon barnaamijku ka qayb galay iyo aaraadiisa uu barnaamijku soo biiriyay ugu mahadnaqayaa dhageystayaasha kale ayaan barnaamijka fursada u siinaya qaybihii dhexe ee barnaamijkan waan soo gaarnay waa tahay dhegeyso qodobka maanta barnaamijka miiska inoo saaran waxa uu yahay mas-uuliyadaha saaran waa maxay doorka shakhsi walba oo ka mid a rayidka iyo bulshada xuduud wadaagga iyo kaalinta shakhsi walba uu ka ciyaari karo si loo helo amni iyo weliba wadajir la intifaacsado gaar ahaan shacabka Mandheera iyo Beled Xaawo iyo shacabka kaleba. Hello DFM. Hello, assalaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anku salaamuna waa Jamaal maadankaas Yuusuf. saaxiib ku soo dhaweynayaa barnaamijka la socoteen filaa daw guud gasho Jamaal. Waa la socdaa dana guud galor amnigu waa mid wanaagsan oo dadaalan waa wax jira. Haye. waayo amniga duusan jirin wax dhaqan lahaaba ma laha. waa tahay askari qorax joogta ahna oo habeenkina ku dhafraay inaad garato xiisa adkaysan waa qurux badan tahay. Haye. saabta meel walba joogaan dhalinyarada joogta Soomaaliya Kenya meel walba joogaan ayaga saaxiibo ah xiriir kale ayuu ma u baahnaa ayaga xiriirsanaya ma garat. waa tahay marka seed u aragtaa xiriirka ka dhaxeeya bulshada xuduud wadaagga. maasha Allah waa si wanaagsan inay saan iska balaaran ay waliba u soo xiriiraan aan jecelahay. marka aad baan u salaamayaa meel walba Soomaali joogto ku salaamta. aad baa u mahadsan tahay dhegeystaasina uu mahadsan yahay aaraadiisa saliimka ee barnaamijka ka qayb galay ugu mahadnaqayaa dhegeystayaasha kale barnaamijka ay ka qayb gali karaan qadadka tooska idaacadda Safaricom waa eber 720 eber 434 eber 9 hormuudkana waa eber 640 20 eber 72. daraasaadku wuxuu sheegayaa in 10 daqiiqaba sanadkii 2023 la dilayay qof dumar ah waxaana dilalkaasi si ula kac ah u geysanayeen nimankii ay wada joogeen misaba shakhsi ka mid ah qoyskooda. xadgudubka ka dhanka ah haweenka waa khatar joogto ah ma laha sabab lagu xadgudbi karo haweenka iyo gabdhaha. waxaanu u baahannahay sharci adag oo dhaqan gala xog aruurin daahfuran dowlad la xisaabtanta iyo dhaqan aan u dulqaadan dulliga ku xadgudba dumarkeena. waa tahay dhegeysto seed u aragtaa xiriirka ka dhaxeeya bulshooyinka xuduud wadaagga ee Mandheera Beled Xaawo iyo weliba Suufta bulshada doorceenka ee ka ciyaari kartaa sugidda amniga
sidee bulshadana dhegeyso oo ugu wada shaqeyn kartaa ka hortagga rabshadaha iyo weliba qalalaasaha ee gobolka iyo xuduudaheena dhegeystayaal si lamid ah sidee bulshadeena ay uga qeyb qaadan karaan xalinta khilaafaadka xuduudada mararka qaarkood ee dhegeystayaal ka dhaca amnigana waxa uu faa'iido u yahay dhammaan bulshada xuduud wadaagga bulshadeena sideen ku mideyn karnaa baad is leedahay ayagoo ka wada shaqeynaya si nabada amnigeena qodobkaasi ayaan maanta barnaamijka danta dalalka deriska aan kaga hadlaynaa waa barnaamij isbuucla ah oo aad dhegeysataan axad walba isagoo ku celisa habeenimada arbacada 7 aad dhegeysataan alaabana waxaa idinla socodsiiyey ibraahim nuur cabdiraxmaan ibraahim yara stuudiyaha dhaawa FM Mandheerana waad kala socotaan qadadka tooska idaacadda ayaad kaga qaybgeli kartaa haddaa Mandheera ku sugan tahay baled xaawo ama suufta ku sugan tahay Safaricom waa eber 720 eber 434 eber 9 hormuudkana waa eber 6 eber 72 qadadkaasi tooska ayaad dhegeysto soo beegsan kartaa dhanka qadadka SMS-ka si lamid ah barnaamijka waa kaga qaybgeli kartaa dhegeystaan wuxuu yiri assalaamu calaykum magacaygu waa xasan waxaan ku suganahay xaafadda Neebo ee magaalada Mandheera bulshaweynta wuxuu yiri bulshaweynta laamaha amniga ha la shaqeeyaan gaar ahaan ciidamada sugidda xuduudda si looga hortago kontrabanka iyo weliba hubka sharci darrada buu yiri dhegeystaasi barnaamijkan uu soo dhaweynayaa aad buu u mahadsan yahay araahdiisa iyo weliba sida quruxda badan uu barnaamijka kaga qayb galay oo ugu mahadnaqayaa dhegeystayaasha kale si lamid ah barnaamijka oo ay ka qayb gali karaan Hello Dhawa FM waa tahay dhegeystayaasha waan ismaqli weynay kula wacan dhegeyste waa tahay weli barnaamijka ayaa la socotaan eber 720 eber 4 34 eber 9 eber 6 eber 72 waa qadadka tooska dhegeystayaashana barnaamijka ay kaga qayb gali karaan dhegeysto sidaad u aragtaa barnaamijkan si lamid ah qadadka tooska ee idaacadda ayaa soo beegsan kartaa adoo aarahdada ka dhibanaya ilaa iyo 9 galabnimo saacadda intay kasoo gaarayso hawada ayaan baaqi ku sii ahaan doonaa waxaana diiradda ku saaraynaa barnaamijkeena mas-uuliyadaha saaran waa maxay doorka shakhsi walba oo ka mid ah shacabka rayidka iyo bulshada xuduud wadaagga iyo kaalinta shakhsi walba uu ka ciyaari karo si loo helo amni iyo weliba wadajir aan intifaacsano shacabka Mandheera iyo baled xaawo iyo weliba kuwa kale xuduudaba dhegeystayaal qadadka waa eber 720 eber 434 eber 9 eber 6 eber 72 waa tahay dhegeysto nabaddu waa xaalad xasilooni iyo weliba wada noolaasho taasi oo dhegeystayaal rabitaankeeda noolaha ay ka wada siman yihiin nabaddu waa naas lanuuga nabaddu waxay ku xiran tahay jiritaanka aadanaha waana tiir dhexaadka horumarka bulsho kasta haddaba dhegeysto sidaan ugu wada qaadan karnaa nabadda iyo weliba sugidda shacabka xuduud wadaagga bulshadeenna sidee ugu wada qayb qaadan kartaa sugidda amniga sideen ula shaqeyn karnaa laamaha ammaanka si aan uga hortagno rabshadaha iyo weliba qalalaasaha gobolkeena dhegeystow bulshada door ceenke ayaa ka saaran ka hortagga
waxyaabaha kontrabanka daroogada iyo weliba hubka sharci darrada. dhegeysto sidaad u aragtaa xiriirka ka dhexeeya bulshada xuduud wadaagga waa qodobada barnaamijkeena aan kaga hadlayno maanta. halo ibrahim waa maxamed horta shacabka amniga ayaga waxaa ka saaran mas-uula ka saaran haye marka mas-uul ka saaran waxaa waaye horta annaga amni darrada yani soo noqnoqonaysaa talaftiga dan nooguma jirto waa tahay horumarka dhaqaalaha waddanka naga xanibaysaa marka waxaa waaye waxbarashadaanadii horta hadda waxbarasho jirin oo caafimaad jirin oo waxyaabaha hadda yani aysan jirin bulshada waxay u baahan tahay waa caafimaadka waxbarashadii waxyaala waxaa waaye yani aad aad horta ugu baahan tahay haye haddii meeshaasay amni darro ay ka dhacdaan haddee waxaa waaye adi qas in lab lagu geliyo wax ilaahay abuura faa'iidood ka helaysa ma laha marka shacab haddaad maqasho amnigiisa asigaa ilaahay baa gacanta ku haya laakiin waa kontrooli karaa waa tahay dawladda dambeelaha yani ku koobnaa joogto shacabka ka inda dheer shacabkaana wax arkaya ilaahay yani markaad 100% shacabka horta aad u inda badan yahay ninkii wadani oo waddanka ku dhashay oo meesha ayada joogo oo yani hub sharci darre ama iska soo gol oo sharci darre ama waxyaala kontrabaan laga amniga in la soo xiriiro oo qofka sidii alaabtiisa la sharciyeeyo oo la baaro aad aad loogu wanaagsan yahay haye shacabka inaad la shaqayso askartii iyo shacabkaadi waxa yani adi amnigaadi wax u dhimaa inaad ka shaqaysanayso haye oo iska kontrolsho laftirkaaga askariga kontrol waa inaad kontrolsho adiga aad iska feeriso waa tahay marka waxyaaba iska sharci darro fara badan maadaama xuduud dheer aan leenahay afarta qabla waxaa waaye xuduud dheer yani sida hadda soomaaliya iyo kenya oo kale ethiopia iyo kenya wax ka dhexeeya xuduud dheer waaye waa daris wanaag waa laba shacab waa tahay xaggana shacabaa ku nool intana shacab saddex xuduudba shacabaa ku nool soomaalidana inta waa ismaamulka soomaalida camal waaye wax kaloo dhex degaya male marka waxaa la rabaa amnigaada wixii qasbi inaad iska celiso iska xakamayso oo marka guddi odayaal loo saaray waa tahay maxamed odayaalka biisku sida hadda biisku matidii gacanta qadada ma qabsadaan laakiin biisku mati odayaal oo nabadoonyaal la xaggana aqalin aad joogto ugaashaal aad joogo shacabku waxaa waaye afarta yani saddex xuduud oo geesaha waxaa waaye 10 ama 10kaas 20 nin oo odayaal oo aad iyo aad wax kastaba u kala bixiyaan rabaa waa tahay marka waxaa waaye wixii kalena oo dawladdan la hoostagayna oo dawladda nal bobcalna ka dhisan kana kii calanka anaga hadda babanaya kaas Soomaaliya babanaya kan Ethiopia waxa inta bacalna ka jira waa in lala kaashan haye marka haddii shacabka iyo dawladda isku xiran ay noqdaan horta amni darro meeshaas kama imaadaysaan ogahay marka nabadgelyada ballaaran allahna siiyo nin walba wuxuu rabo waa nabadgelyo ibraahim oo runta markii lasoo sheegay maxaa yeelay meel ay nabad ka jirin caafimaad ma yaallo waxbarasho ma taallo hataa cuntaan ma yaallo haye marka waxaa waaye saa hadda loogu dhiirinaysa oo hadda yani barnaamijkaas wacyigelin usoo saarteen horta 90% aad iyo aad aynu kaga mahad celinayaan maxaa yeelay waa barnaamij ballaaran oo shacabka sta f hadda daawa f waxa ku xiran hadda 90% waxaa waaye kawntiyal kala duwan waay marka waxaa laga rabaa yani waa idin sheegay maalinka 4 sano 5 sano oo socoto hadda idaacadna hadda dhexdeeda maanta hadda waxyaala fara badan nina hadda jirna hadda ibraahim waa hadda kara ma garan nina ra'yigiis guursan karna hadda gudbira mas'uuliin kala duwan la soo dhabeeyo soo fariisi maxaa la yidhi dugun kana waxaa la dudun Soomaaliya xukuma dudun kana dareemana kana dugaal duduntan waana ku dugaal waana ka dareem bahal miyaa ku jira halka miyaa ku jira wax kaaga soo bixi doona waxaa horta adduunyada dhanba saas waay waa tahay marka ina hadda waxaan ku yani 90% aan ku soo celceli waxaa waaye baahida yani amniga loo qabo waxaa waaye amnigaada hadduu ninka ari sugaay uu baahan yahay ibraahim oo meeshaas waxaa waaye ninkii xalay adiga kula dhasho walaalka ahaa inaad dab shidin karin aad og tahay yani inay asiga saaki shaqadiisa ku habsaamay xalay uu kuu soo jooday kuu dhafray laftirkaada shacab adigoo haddii wax kale ahayd waa iskiilaha bariiska ilmihii loo korsadahay iyo sporti iyo Argentina boqolaha anaga laftirka anaga amniga horta anaga waxaa waa shacab haddaan horta isma dareemanin waxa lagu tirsay in shacabka aasay wuxuu yiri hadda waxa waaye nin hadda yani barnaamijka ka baxsan gudoomiye Axmed wuxuu dhahay wadankaas $1 lagu dhiso waa tahay marka $1 wadanka lagu dhiso laamiyaalka wadanka la saar markaad aragto ajaayis markaad media ku ajaabaysa hadda waxa shacabka ayaa dhis haye marka adiga canshuurtaan aad ka soo ordaysa maaha adiga canshuurtaan lagu soo ordaya maaha waa budgetka dawladda in wax la xaqaad u leedahay inaad shacabkaadi iyo adiga isla xisaabtantiin amnigaada ka xisaabtanto marka waxa waaye aad saacidayso waxa aad dad kugu jirtaa askariga naftigiisa waxa waaye danta adiga aad leedahay kala leeyahay waa tahay marka waxaan ku soo gabagabeynaa Ibraahim oo waan dhageystayaalka ugu mahad celinayaa odada waxa waaye daawa af ma ugu mahad celinaa 90% martida kala duwan oo soo odayaalka marka waxaa laga rabaa shashanina odayaal guddiga ku dhex jirto oo xaggana dawladda hoostaga ku anaga hadda yani islaamka anaga waxa waaye waa ballaariye waxyaabaha soo noqon rag iyo haweenba u taagan yihiin sidoo kale marka waxaa laga rabaa saddexda dhinac inay yani odayaal la yeesho marka odayaalkaas ay wixii yani shacabka kula soo gudboon inta horta yani wixii wada hadal lagu dhamaysan karna hadda sida daaqsimaha oo kale wax wada hadal oo regulay horta iska dhamaysan karaan waa tahay maxaa yeelay ninka maanta abaar ahays berikaas abaar horta waxyaalo fara badan oo waxaa iska jira oo dhacdooyin iska soo noqdo
marka kufsiga camal waxa waaye asiga xuduud bamala waa shaydaan hay marka ninka wax dilay laftirkiisa waa shaydaan ku qabta oo iska qabatin maxay amnigaada wuxuu dhimayaa beri waa tahay marka waxa waaye ma doonayno marka waa soo dhaweynaynaa marka waxa waaye annaga amniga annaga aan ku xisaabtamo gaar ahaan weliba reer Madheera weliba gaar ahaan waxaan amniga saaraa reer Madheera war nimankaan noo soo joodo oo annaga habeen dharaar noo dhafray aan la shaqeyno dawladda aan la shaqeyno dawladdu waa dawladda annaga meel kale wax nagala mageynaa dhaqaalaha waddanka kusoo dhex noqonaya marka kii laftirkiisa waddanka hadda jooga oo ka shaqaysanaya waxaa waaye dhaqaalihii xagee ku soo celinaya maqaayadii adiga aad meeshaas ka furan waxaa iska nin adeerkaas ama walaalkaa iska leh waa tahay haddii amni darro aas kaaga carara xaggee dhaqaale yaallaa caafimaad xagguu yaallaa waa tahay waxbarasho xaggee taallaa inta setiimar xaggees yaallaa inta nolosha waxay ku xihan tahay intaas waay waa tahay marka waxaa waaye annaga weliba qaas ahaan waddanka annaga aan ka taxadirno amniga annaga aan ka taxadirno marka waxaa waaye ismaamulka annaga soomaaliya imaaday soomaalida annaga madaxay leedahay ilaahay baa maadla madaxaan leenahay alxamdulilah hay marka dawladii hore waxaa hataa national government ragga maanta saraakiisha laga tirsanayo waa soomaali waay marka waxaa waaye amniga annagaa ku xisaabtama location kasta oo jief aas joogo waxaa leedahay dad shacab ah odayaal oo hataa nimankaas bis committee ka qabsad badanaa jira oo waxyaabihii meel kastaba laga soo geli kara ayagan og waa tahay marka xuduudan ballaaran marka saasaan ugu baxaya marka shacabkii iyo dawladdii gacnahaas ku qab weliba waxaan kasii hadlaya annaga countiga annaga waxaa waaye gacnaha isqabsano amniga annaga wax u dhamaaya annaga raalli kama nihin marka meel alla meesha kusoo gabanaya waa iska qabanaynaa marka waxaa waaye annaga aan isla shaqayno jiiftaha annaga aan la shaqayno waa dad dadka u daga dhugul oo lambaraha kala qaadanaya weliba oo xoolo dhaqatada ka warqabo hadda ilaahay baa mahadle meesha awalkaanu markaa joogi waxaad arki jirta haddii wax lagu yeelo nimaad u carraysa ma jiri jirin hadda marka waxaa waaye waa ilbaxnay waxay tiri yani haddaan ilbaxnay marka haddii marka waxaa amnigaada inaad yani ku takhasusto ood aqoon u leedahay aad baa u mahadsan tahay marka adigaa mudan saaxiib aad yaa kaaga mahadcelinaya aaraahda saliimka barnaamijka kaga qayb gashay waa kaga mahadnaqaya dhegeystahaas u mahadsan yahay dhegeystayaasha ugu dambeeya barnaamijka ayaan fursada u siinaya qeybihii dambe ee barnaamijka danta dalalka dariska ayaa dhegeystayaal aynu ku siisiqaynaa oo maanta aynu kaga hadlaynay mas-uuliyadahana saaran sidee ayaanu wada shaqeyn karnaa amniga xuduudda iyo laamaha ammaanka sideen ugu wada shaqeyn karnaa sideesaan uga hortegi karnaa waxyaabaha kontrabanka daroogada ay ka mid tahay iyo weliba hubka sharci darrada ah sideed u aragtaa xiriirka ka dhexeeya bulshada xuduud wadaagga waa su-aalaha miiska inoo saarnaa dhegeystayaasheenana barnaamijka ay kaga qeyb galayaan dhanka fariimaha markale haddaan jaleeco asalaamu calaykum ibraahim yare dhegeystaan wuxuu yidhi waxay la tahay bulshada degan saddexda wadan waa inay wada shaqeeyaan shacabka ku nool saddexda wadan iyo maamuladooda waa in ay wada shaqeyn ka dhexeysa buu yidhi dhegeystahaasi magaciisana soo raacinin aada buu u mahadsan yahay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan dhegeystayaal aynu kusii shaqeynaa eber 7 eber 4 34 eber 9 eber 6 40 20 eber 7 waa qadadka tooska ee barnaamijka aad kaga qeyb gali kartaan waa hagaag weli barnaamijka ayaan dhegeystayaal aynu kusii jirnaa dhegeystayaasha aada bay u mahadsan yihiin sida qurxoon ay nala socdaan barnaamijka danta dalalka dariskana waa barnaamij toddobaadlah waana qeybtii saddexaad ayaad maanta soo dhegeysateen qeybta afraad toddobaadka xiga qodob aada u muhiim ayaan si lamida kusoo qaadan doonaa balse iminka qodobka miiska inoo saaran wuxuu yahay dhegeysto oo aad barnaamijka kaga qeybgeli karta waa maxay mas-uuliyadahana saaran sidee ayaan ula shaqeyn karnaa laamaha ammaanka sideesaan uga hortegi karnaa waxyaabaha lidka kuwa amnigeena iyo weliba waxyaabaha kontrabanka iyo weliba hubka sharci darrada uu ka mid yahay sideen ula shaqeyn karnaa laamaha ammaanka dhegeysto sideed u aragtaa wada shaqeynta ka dhexeysa laamaha ammaanka iyo weliba bulshada xuduudda wadaaga ee mandheera beled xaawo iyo suufta waa qodobka maanta miiska inoo saaran barnaamijkeenan aynu ku falanqeynayno arrimaha amniga ayuuna diiradda saarayaa barnaamijkeena maanta
amnigana waa muhiim, nabadgelyadu waa muhiim dhegeystayaal. nabadda ayaa naas la nuuga leh, nabaddana bulshada oo dhan bay ka dhexeysaa oo qof walba bay dhegeystayaal dani ay u tahay oo shaqsi dani uma aha. haddii nabaddu si la midana ay shacabka wada xoojiyaan, bulshada xuduudda ku nool si wanaagsan ay ugu wada faa'iideysan karaan kheyraadka ka dhexeeya dalalkan deriska, maadaama bulshada oo dhan ay wada yihiin bulsho Soomaali ah, diin ay ka dhexeyso, si la midana isku qowmiyad ay tahay. danta shacabka oo dhanna ay mid tahay waa shacabka ku nool Mandheera, Beled Xaawo iyo Suufta. danta dalalka deriska ayaan dhegeystayaal aynu ku guda jirnaa. dhegeystayaasha waxay naga soo wici karaan eber 7 eber 4 34 eber 9 eber 6 4 eber 7 waa qadadka tooska. dhegeysto bulshada xuduudda wadaaga waxay leeyihiin taariikh iyo weliba asal, waxaynu ka sameyn yihiin dhowr shay bay ka sameyn yihiin. waa bulsho isku dhaqana, isku diina, si la midana isku qowmiyada. dhegeystaan iminka haddaan u baaqo. wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaad ku eegay barnaamijka haddaan raadiyaha furtay. waxaan ka hadlaynay danta dalalka deriska ayaan ka hadlaynay iyo sida bulshada ay ugu wada qeyb qaadan karto xoojinta. sideed u aragtaa wada shaqeynta bulshada Mandheera, Beled Xaawo iyo Suufta? qodobkaas ayaan ka hadlaynay. wada shaqeysto amniga laga wada shaqeeyo wax dan noogu jirto dhammaantiin sooma ogid. waa tahay dad iyo dunyada sooma ogid. haye amnigu waa fiican yahay. waa tahay meelisan adni oolina hadee wanaag ma yaalo. amniga allaha noo soo wanaagsan dira caafimaad baalaha ficirkana allaha noo soo. waa tahay halkeen naga soo wacaysay dhegeystahaasi aad bay u mahadsan tahay. qadka telefoonka hormuudka ay naga soo wacday Beled Xaawo bay ku sugan tahay aan filayaa. aad iyo aad bay u mahadsan tahay. guntii gabagabada barnaamijka ayaan kusii shaqeynaa. dhegeystayaasha ugu dambeeya barnaamijka ayaan fursadaha u siinayaa. sidaan horey u sheegayna bulshada xuduudda wadaaga waa bulsho aada isku xiran oo waxyaabo badan ay ka dhexeeyaan danta dalka deriska, sida qodobka dhegeystayaal barnaamijkeenaba iyo weliba ciwaanka barnaamijkeenaba uu ka tarjumayo. waxaynu wadaagnaa waxyaabo badan baan ka simannahay, dhowr shay baan ka simannahay. waxaanu ka simannahay diinta baan ka simannahay, dhaqanka baan ka simannahay, soomaalinimada iyo qowmiyadnimada baan ka simannahay, dhaqanka hidaana waanu ka simannahay. waagii hore waxaa laga yaabaa inuu jiray waxyaabo yar oo na kala qaybinaya, balse hadda labada danba saddexda bulshaba waxyaabo badan baa mideeya. haddaba sideen ugu wada shaqeyn karnaa amnigeenna, oon ugu hortegi karnaa waxyaabaha dhegeysto na kala qaybinaya iyo weliba waxyaabaha kale oo amniga lidka ku ah. qodobkaasi baan ka hadlaynay. guntii gabagabadana aynu kusii shaqeynaa.
tahay guntii gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay. barnaamijka halkaasi ayaan ku saafmeerayaa xalqadeenna maanta oon diiradda ku saaraynay amniga, nabadda iyo weliba doorka bulshada. dhegeysto waad ku mahadsan tahay dhegeysiga la jaanqaadka barnaamijkeena maanta. nagala soco baraha bulshada facebooka, x iyo weliba youtube. ciwaankeenana waa danta dalalka deriska. xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa horumarka bulshada deriska. ilaa iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga. maca asalaam, isma dhaafno.